wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duurnimo warbaahinta qaran media qodobada guud waaweyn waxa kamid ah gudoomiye aadan madoobe oo dalab hordhigay xukuumadda ra'iisul wasaare xamse xildhibaano mooshin culus u gudbiyay gudoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka galmudug oo war ka soo saaray shaqaale wasaaradeed oo lagu afduubtay degmada Caabudwaaq qaramada midoobay oo soo saartay baaq ku socda madaxda Soomaalida dowladda Kanada oo Soomaaliya ugu deeqday dhaqaale gaaraya 26 milyan oo dollar dibadan waxaad ku maqli doontaan William Ruto oo shaqo joojin ku sameeyay afar kamid ah guddiga doorashada Kenya iyo Raila Amolo Odinga oo ka yimid arinta Radio Qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com markale ismaqal wanaagsan waa duurnimo Sabti taariikhdu ku aastaysan tahay 3 bisha December ee sanadkaasi idlaanaya 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii ama qasheen oo faahfaahsan aan ku bilowdo gudoomiye aadan madoobe ayaa dalab hordhigay xukuumadda ra'iisul wasaare xamse gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo furay kulanka haatan u socda xildhibaanada ayaa dalab u diray xildhibaano ka tirsan golaha uu sheegay inaysan soo xaadirin wali kala fadhiga labaad ee golaha gudoomiye aadan madoobe ayaa tilmaamay in si dhab ah lagu heli karo Chromeka ay ku furmayo kulanka golaha wuxuu faray xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee fasax la'aanta ay ugu maqan dalka dibadiisa inay si dhaqso ah dalka ugu soo laabtaan sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre faray inay dhameystiraan 9 hindise sharciyadeed oo qaybo weyn ka kuwaas oo dhammaan loo soo gudbiyay golaha gabagabadii aadan madoobe ayaa wuxuu sheegay in 2 jeer uu xukuumadda uu ka dalbaday inay soo gudbiyaan hindise sharciyadeeda loogu baahan yahay isagoo xusay in kuwa haatan ay haystaan ay qabyo yihiin oo wax ka maqan yihiin ajendaha kulanka uu socdo maanta xildhibaanada ayaa wuxuu yahay qaybinta akhrinta koowaad hindise sharciyadeedka korontada iyo warbixin laga dhageysan doono xildhibaanada baarlamaanka ee kuwaas oo ka soo laabtay deegaan doorashadooda dhanka kalena xildhibaano mooshin cusub ay sidoo kale waxay mooshin culus ay u gudbiyeen gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gudoonka golaha wuxuu u gudbiyay mooshin culus oo ku aadan xaalad dalka gaar ahaan dhanka amniga magaalada caasimadda Muqdisho mooshinka laga gudbiyay ayaa waxa saxiixay ilaa 22 xildhibaan kuwaas oo dalbaday inay muhiim tahay in laga hadlo arrimaha ammaanka dalka maadaama xaaladda ay marayso meel halis ah oo ay dhawaan ka dhaceen magaalada weeraro gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku dhawaaqay in ilaa 44 xildhibaano ay ogolaadeen in ajendaha kulanka lagu daro mooshinka hal xildhibaan ayaa diiday mana jiro wax ka aamusay mooshinka xildhibaanada ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ay magaalada caasimadda Muqdisho ay ka dhaceen weeraro qaraxyo iyo dilal qorsheysan waxaana ugu dambeyn weerarkii al-shabaab ee ku qaaday hotel Villarais ee ku yaala nawaaxiga madaxtooyada qaranka markaan galmudug maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray shaqaale wasaaradeed oo dhawaan lagu afduubtay degmada Caabudwaaq sida warkaani ku faahfaahinaysa wariyahiga Istahil maamulka galmudug ayaa war ka soo saartay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo lagu afduubtay magaalada Caabudwaaq shaqaalaha la afduubtay waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaale la socday waxaa afduubtay ciidamo beeleed ka carooday habka loo qaybsaday golaha deegaanka Caabudwaaq war ka soo baxay galmudug ayaa sidaani u qornay dowladda galmudug waxay cambaareynaysaa afduubkii ahayd ee aaga degmada Caabudwaaq loogu geystay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha galmudug 2 December 2022 falalka afduubka waa fal dambiyeed ka soo horjeeda dhammaan sharciga iyo nidaamka dowladda waxay u mahad celinaysaa Suldaan Axmed Garba Cune iyo odayaashii uu hogaaminayay ee ku guuleystay in ay soo deeyaan shaqaalihii shalay la afduubay dowladda galmudug waxay muhiimada koowaad siinaysaa dhismaha dowladda hoose ayadoo sanadkaani aanu ku jirin ay dhismaha ilaa
iyo 5 degmo. Ugu dambeyntii Galmudug waxay faraysaa hay'adaha amniga in amniga degmada Cabudwaaq gacan buuxda lagu qabto. qaramada midoobay ayaa soo saartay baaq ku aadan madaxda Soomaalida iyadoo la xusayo maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah ee loo soo gaabiyo IDPD. qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta ku bogaadisay maamulada Soomaaliya horumarka ay ka gaareen aqoonsiga xuquuqda dadka naafada ahi, waxayna ku dhiirigelisay inay sii xoojiyaan guulaha ay gaareen. sanadkii 2019 dowladda federaalka Soomaaliya waxay saxiixday axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada. tani waxay arinta taariikhiga ah u ahayd Soomaalida naafada ah iyo qoysaskooda, waana mid muujinaysa sida ay dalkooda ay ugu go'an tahay horumarinta, ilaalinta iyo hubinta dhammaan dadka naafada ah ay si buuxda u siman ugu noolaadaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda asaasiga ah, ayay tiri ku-xigeenka ereyga gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Anita Kiki. qaramada midoobay ayaa madaxda Soomaalida ugu baaqday inay sii wado dadaalada lagu doonayo in arrimaha naafinimada lagu daro horumarka dalka, waxayna diyaar u tahay inay taageerto ay raacisay Marwanite oo sidoo kale hadda ah madaxda siyahayaha ee xafiiska howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM. iyadoo sanad waliba aan la xuso 3 Diseembar maanta oo kale golaha guud ee qaramada midoobay ayaa asaasay maalinta caalamiga ee naafada sanadkii 1992. maalintu waxay loogu gol leeyahay in kor lagu qaado fahamka arrimaha naafinimada iyo laguna abaabulo taageerada sharafta, xuquuqda iyo sidoo kale fayqabka dadka naafada ahi. waxaa kale oo ay doonaysaa inay kordhiso kabarqabida faa'iidooyinka laga helo isdhexgalka dadka naafada ah dhinac kasta oo ay siyaasadda, bulshada, dhaqameedka iyo sidoo kale nolol waarta. dowladda Kanadana waxay Soomaaliya ugu deeqday dhaqaale gaaraya $26 milyan. geeska Afrika ayaa waxaa ka jira abaartii ugu xumeed in ka badan 40 sano ee la soo dhaafay. Kanada waxay aad ugu walacsan tahay saameynta abaartu ay ku yeelatay dadkan ugu nugul ee markii hore la daala dhacay saboolnimada, amni darrada iyo miisaaniyadda COVID-19. abaarta 2020 ilaa 2022 waxay hadda dhaaftay abaarihii foosho xumaa ee 2010, 2011 iyo 2016 ilaa 2017 ilaa 50 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto degdeg ah. dalalka Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, South Sudan iyo Suudaan. maanta mudane Harji ayaa sidoo kale wasiirka horumarinta caalamiga ah wuxuu ku dhawaaqay sida Kanada ay wax ugu qaban doonto gaajada, nafaqa xumada iyo walaacyada ay kale ee muhiimka ah ee dadka u dhibaataysan in si looga caawiyo kortegida macluusha gobolka Geeska Afrika. wasiir Sajan ayaa shaaca ka qaaday in lacag dhan $107 milyan loo qoondeeyay gobolka weyn ee Geeska Afrika oo ay ku jiraan $25 milyan oo Ethiopia loo qoondeeyay $11 milyan. Kenya waxaa loo qoondeeyay $26 milyan halka Soomaaliya loo qoondeeyay $26 milyan. sidoo kalena $25 milyan ayaa loo qoondeeyay South Sudan halka Suudaan loo qoondeeyay $20 milyan. maalgelinta ayaa qayb ka ah $250 milyan oo maalgelin ah oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Justin oo 23 Juun ee sanadkan sii idlaanay 2022 oo si wax loogu qabto dhibaatooyinka sugnaanta cunnada ee adduunka, waxaana la siin doonaa hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa aan dowliga ahayn. wasiir Sajan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Kanada ay ku bixin doonto lacag dhan $12.2 milyan muddo 3 sano ah hay'adda cunnada adduunka WFP, taasi oo lagu talagalay barnaamij cunno nafaqaysan oo maalinle ah oo la siin doono in ka badan 32,000 arday ah oo iskuulo ah kuwaas oo ku nool gobolada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo ay ka jirto cunto yari aad u daran. ugu dambeyntiina William Ruto ayaa shaqo joojin ku sameeyay 4 ka mid ah guddiga doorashada Kenya iyo sidoo kalena Raila Odinga ayaa ka hor yimid. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shaqo ka joojiyay 4 ka mid ah guddiga doorashada oo diiday inay taageeraan guushii uu ka gaaray doorashadii bishii Agoosto ee ka dhacday dalkaasi, sida ay sidoo kale madaxtooyadu waxay sheegtay Jimcihii. wuxuu sameeyay guddi baaritaan ku sameeya haddii ay haboon tahay in xilalka laga qaado. sidoo kale talaabadan ayaa dagaal culus ay ku furtay dowladda iyo mucaaradka, waxayna timid kadib markii baarlamaanka Kenya uu Ruto ka codsaday inuu sameeyo dacwad ka dhan ah xubnaha guddiga doorashada ee kala ah ee ku dhawaad waxa lagu sheegay inay yihiin 4 xubnood.
Raila Amolo Odinga hogaamiyaha mucaaradka ee rugcadaaga ah ee sida diqriga ah loogu guuleystay ee doorashadii Agoosto dhacday ayaa ku gacan siiray talaabadii Ruto ku qaaday xubnihii diidanaa natiijada doorashadiisa. dibadbaxa ugu horeeya ayaa ka dhici doona ayaa lagu yiri Nairobi December bishan 7 halka ay kan labaadna ay qaban doonaan December 12keeda. xafiiska Ruto si degdeg ah uguma jawaabin markii wakaaladda wararka Reuters ay ka weydiisay eedeentani. mid ka mid ah guddiga ayaa sidoo kalena sheegay inuu iscasilay sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. 4 xubnood ayaa qabtay shir jaraa'id oo barbar socday kan gudoomiyaha guddiga doorashada bishii Agoosto 15keedii waxayna sheegay inay aanan qayb ka noqon karin natiijada sida tooska ee telefishinada ay kaga dhawaaqeen gudoomiyaha iyo labadooda xubin. guudaan qodobkaasi ayaa u dambeeyay saaxiibayaal warka doornimo aad ka dhageysanayseen qaran media anigoo Saadiq Aadan Cusmaan ayaa warka idinla socodsiinay intaan ku kulmeyno warkan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo. Radio Qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com